intaasoo xil baa la qaatay degmada saylac iyo luqay iyo dhulka oo dhan waa la qaatay dee waxaasi lama qabata de in hargeysa rag laga magacaabo saylac dhulkaa lagu magacaabo ma soconayso de xaq bay tahay oo waajib bay tahay ninka ku yaraysta ee wax kaa weydiin waayo dalkaaga iyo deegaankaaga inaad istusto xaq bay tahay dadkan xaqoogu maqan yahay waxa weeye kuraasi ma hayaan ciisiyo gada buursi midna kuraasi ma hayo wax yaroo luflufi hayaan saqajaan oo meelaha yaroo la fadhiisto halkaa Jabuuti fariinta gaarsiino dhaano waa nala ilaaliya wala lacagta baaqi gaari fayska saddexaad baa lacag sudimanta nala doona taasaa dekadii noogu filanba sanduuqa isbaaysiga aan ku shubno anigu cusubadii sheegay madaxweyne Cabdiraxmaan oo isbaaysiga u horeeya beesha ciise karaamada iyo sharafta marka hore sharaf bay taaniga inay wada timaadeen maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay raayigii inaynu kulanay oo inuu xad ka dibnay inaynu inta ka badan kulan ayaan rajaynayaa waxa ciise ururiye ciise didiye waa la garanayaa ciise reer ayer iska cararo meel iska cararo maayn waa reer dakar weey waa geed fadhiga Soomaaliya oo dhan buu ciise u noqday Soomaaliya oo dhan waayo ka jooga ma aragtay Kismaayo iyo ka jooga ma aragtay Buntland jooga iyo ka Kilka Shanaad jooga iyo ka halka jooga dhammaantood ma aragtay dawaa tirigii Jabuuti baa halka la wada hoos fadhiyo geed fadhi loo yahay marka ciise waxa weeye nin yiri ciise waan iibiyay gada buursi waan iibiyay dhulkoogii de kaasayna didii oo kulmiyay noo diiday oo inoo diiday inaynu ma aragtay de fadhi noo diiday xaq bay tahay oo waajib bay tahay ninka ku yaraysta ee wax kaa weydiin waayo dalkaaga iyo deegaankaaga inaad istusto xaq bay tahay waxa ugu weyn ee la isku tusayana wax weeye ugu horeeyay waa xeeladu way kala horeeyaan xeelada ugu horeysa waxa weeyaan cod baynu ku ridaynaa cod baan ku joojinaynaa cod baynu ku ridaynaa ku joojinaynaa inaad go'aan ka gaadheen oo dhamaantiin maanta wada isbedeltoontiina waan idinka mahadnaqayaayo go'aankeediina waa leediin taladeediina waa leediin oo de waxeerkiisii iyo ma aragtay iyo xamaantiisa uu noo sheeciisa jiray waan idinka mahadnaqaynaa inaad duqaydiini iyo odayaashiini iyo geed fadhigii wali atiin oo wali xeer ciise shaqaynayo oo waad ku dhaqantiino waa inta Soomaalida kale laga badbaadin inta naga maqan inteena halkan wada joogtay Soomaaliland iyo awdal wada joogtana walaalaynu nahay haddii la isku keen diri jiray dib la isku ka diri maayo haddii la isku ya haddii la isku xeerkiina noo xeera haddii la isku diri jiray waynu wada jireenina deegaankeena waxa noo taala ma aragtay deegaanka ka timaadeen dhulka ka timaadeen inagu nolol baan doonin nolol baan dhulka u doonino in lagu noolaal karo oo dekada yar dadka kalluumaystaan wax kala soo degaan oo wax ku noolaadaan oo laamida la gaarsiyo wadugtiin nolol bay diinaan lahayd oo wadugtiin dadka deegaanka jooga xeebta nolol buu halay rag baa diidan waxa kale oo la diido aan gunteeda ogaaday markay xoolaheeda ka dhamaadeen beeraha wada qodataan labadii wada joogay hargeysa lagaga duuliyo la iskaga daraya ka waran ibtilada dhacday waa laba walaalo in beerta wada qotaan kala jeexdaan inaad beerihii qodataan dib ugu noqotaan iyadoo waajib weeyaan in saaran oo durdurada aday maxaa selil dibreeway baa maraya waxa maraya maxaa la yiraahdaa ya heemaal baa maraya waxa soo dhan waa durdur cid idiin diidan inaad wax beerataan ay isku keentiraysaa iska qabataan ba fiican oo wax beerataan waxa wanaagsan rajadii ugu weyneed dadkaas ilaahayeen maanta ugu dhowdahay waa wadada walaalayaal ka bilaabmayso weeyaan wadada weey warintidii ugu weyneed weey awdal iyo reer sare lahaayeen weeyaan waa nolol ka weyn ma jirto haddii doonaysaan isbedeshaan nolol har isku bedelno haddaan doonayno inaynu dhaqaalahan umada la tartano waxay noo taala wadada hareer ka joogsano wadada inaan hareer ka joogsano inoo taala waayo wadadu faa'iidadeeda aan boorma ku arkay siyaaya 2010kii boorma iyo hargeysa hal bas baa kala socon jiray hal gaari oo LG loo rij siyaaya 18 kilomitir furay inta kale asardiyo ka qayb qaatay boorma 5 jeer bil bilaabantay magaalooyinka ugu waaweyn waxay noqon doonaan Geerisa iyo ma aragtay Cabdiqaadir iyo maxaa la yiraahdaa Xariirad iyo Saylac iyo loo yaaday noqon doonaan isku iman doonaan soo shaqeeyay doonaan marka maxayna faran wixii arintaasi arqalad ku keenaya in marra ka joogsana fariinteedii ugu weyneen ma aragtay Maxamed Cawaala Daarugo wada leen jacaysiba taasay way bilaamaysaa shayga ugu weynna waxa weeyaan halka Jabuuti fariinta gaarsiino dhaano waa nala ilaaliya wala lacagta baaqi gaari fayska saddexaad baa lacag sudimanta nala doona taasaa dekadii noogu filanba
waayo waxaan aamsanahay dadka Jabuuti jooga kuleelka jooga in Cabdulqaadir iyo Xariir degi doonaan runtii ka shaqo tagi doonaan marka dawladda tukaanna meelan iyo baradhada soo saarnay tamarada soo saarayna marka inaga Jabuuriyadda u dhoofinayna wax walba kaasi waa ka midna waxa weeyaan waa ruuxii rag weeyaan labada walaalaha meel wada jooga baad way islaafan waxa wanaagsan khilaafka inuu jidkii lahaan jiray dhaqanku lahaan jiray lagu dhameeyo laakiin la siyaasadeeyo oo xafiisyada dawladda lagu karkariyo ma wanaagsana haday wax jiraan idinka wada yaala raayigi idinka wada yaala idinka waa aqalna diyaasha isbaasiga wadanka dooniyo wadanka in la badbaadiyo la dooniyo waan wada hadalno waxaan ku niriday isbaasiga maxaan anaga iyo awdal iyo sel maxay kaga mid noqonayaan waana ka dhaxragna dantayadii waana ka dhaxragna oo dadkan xaqoogu maqan yahay waxa weeye kuraasi ma hayaan ciisiga gada buursimina kuraasi ma hayo wax yaro luflufay hayaan saqajaan oo meelaha yaro la fadhiisto ragaasi arinta maanta wax meel ka noqon karana maaha waa la qoro waxa la qoray awdal xaqiiqi awdalna yada waa awdal waa inaga dhan weey waxa la rabay in daba istaagno inaan ku adkaysano ku adkaysigaas laba arrimood buu yeelan inaan xisaabteedii la daba socono iyo inaan codkiina maanta saan uga garhelna nimanka hadda aan sanduuqa isbaaysiga ku shubnay sanduuqa isbaaysiga aan ku shubno anigu cusubadii sheegay madaxweyne Cabdiraxmaan oo isbaaysiga u codeeya awal waa ka labaadna maanta laba deegaan laba xisbi laba leeyahay kaana waxba ka filiya waxaan isleeyahay halka dalkaad ka fuushido raayigana bariyoga bal celisida kaana aniga halka igu siiya ka waraba waayo xisbiga inaad furato lagu helo sidoo Muuse ku helay xisbiga lagu helaa madaxweyne Muuse sidoo ku helay xisbiga lagu helaa rag badan baa ku dawaqsan xisbiyada hal dhow tolma soo saartana igu wareeji baa lagu helaa marka aanu raggan kaashanayeen rabay inay ugu wareejiyaan soo kaxaysiinay baridii ka kowka ya raggan soo kaxaysanaya Ciisa ka kowga in soo kaxaysanay rag horkeenay oo dhan iyo ugu wareeji xisbigi waan dhisano waan codaynay marka codkii awdalna nala doona kii Ciisa nala doona kii Soomaaliland tana nala doona waayo dadku Soomaalida waa qabiil weedo imika markay Muuse xidhiidhi markuu yiri Jabuuti waa siyaasad sama Jabuuti baa tiidno Ciisa istiin illa kuwa ka joogay buu gareefa leeyahay kan dukan joogay war waa shacabka kuwan hada dawlad Jabuuti siidaan kuwan shacabka weeyaan ayna isbeeda jirintay wadiga arkay wasiirkii habeen hadaladii dawladkiisa wasiirkii iskaga tagay haduu si wanaagsan la hadlay dadku sameeyeen marka waxaanu u baahnay madaxweyne inta kala garta Soomaa waxaynu u baahnay dawlad inta kala garata waxaynu u baahnay dawladan dadkayga isku dirin waxaynu u baahnay dawladina walaalaysan waxaynu u baahnay dawlad xaqeena ka helayno oo wasiirada iyo agaasimayaasha iyo xilalkan u qalanno aynu ka helno run baa idin sheegayaayo xilalka deegaanka oo dhan aan wareego intaas oo xil baa la qaatay degmada Saylac iyo Luqay iyo dhulka oo dhan waa la qaatay waxaasi lama qabatade in Hargeysa laga magacaabo Saylac dhulka lagu magacaabo ma soconayso hadii kala bedelkooda la geeyo degmada kala من ساين عبد الله وصلها وين إلى هاي مرت قدر وين هذه أو ربنا قلنا إنه حيبتك وقلنا إنه وين وشر وين بنقصنا ونحقق إنه كل هذين يعني قدك قدام بيتك عصير ويد عين سريع دعيد إنه لا يدل كذا كنبرك يسد عادي مقبول عجلت إن عندك أنا قاعدين دوني الناي حتى الحق ولا إن أنا غيرت ما دنا دعية هي